Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriirta halkan oo barta youtube-ka aan ku leenahay maalin walba aad naga dhegeysataan maantana waxaan kusoo qaadan doonaa in madaxweynaha soomaaliya xashi maxamuud oo beesha caalamka ay ku cadaadinayso inuu taliyaha nisa uu ka qaado ninka la yihahdo mahad maxamed salaad. Beesha caalamka waxay leedahay mahad maxamed salaad taliyaha nis waa in laga qaadaa si deg dega weliba. Cabashadaas waxaa leeyahay beesha caalamka danta ay ka leedahay lama garanayo, laakiin waxaa leeyahay ma ahin nin nisa wadi karo oo dadka soomaaliyeed isku wadi karo in howlihii nisa laga baahnayn qaban kara ma ahin. Marka waxay leeyihin nisa markii uu mahad salaad ka maqnaa uu haysan jiray ninka la yihahdo Fahad Yaasiin Xaaji Dahar waxay la shaqeyn jirtay Interpol. Marka Interpol maadaama adduunka nisa iyo Interpol ay wada shaqeeyaan booliiska adduunka, waxaa leeyahay mahad salaad arrintaas ma qaban karo. Marka rag waxaa lagu leeyahay Mareykanka ay toos ula shaqeyn jireen nisa waqtigii uu joogay Fahad Yaasiin Xaaji Dahar. Marka waxay leeyihin hadda Interpolka waxay leeyihin anaga waxyaabo badan oo Soomaaliya ugu baahannahay inkastoo wax dan Soomaaliya ugu jirta aysan ahayn, laakiin waxay leeyihin qofkii ugu baahda iyo waxa markan qofka dambiye galayo meelaha kale wadamada Kenya iyo Yurubta markay qof ku baxsada xataa Interpol way kala shaqeyn jirtay sidii lagu soo qaban lahaa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyana waxaa wixii gudaha Soomaaliya lagu baahda ayay ka caawin jireen. Marka Interpol waxay leeyihin lama shaqeyn karno mahad maxamed salaad waa in la bedelaa oo nin kaleeto oo macnaha dhaamo mahad salaad in la keeno. Marka waxay leeyihin xagga ciidanka iyo xagga sirdoonka ninkan waxba kama yaqaano, waa nin iska xildhibaan ah muddo 10 sano ah. Marka xildhibaanimadiisii ha loo daayo. Marka Interpol sheeg waxay codsanaysaa iyo beesha caalamka intooda badan waxay codsanayaan xashi maxamuud inuu ninkaas xilka ka qaado. Marka cabsida xashi maxamuud haysataa waxay tahay beesha oo kasoo jeedo ninka la yihahdo mahad maxamed salaad waa beel aad u kulul. Marka wuxuu ka baqayaa inay beesha ay ku kacdo maadaama hadda beelo kale oo Soomaaliyeed ay ku kacsan yihiin. Xashi maxamuud beesha oo kasoo jeedo iyo beesha kale oo iyadana curudka hawiye ah beesha mursade oo ku kacsan xashi maxamuud baryahan. Marka wuxuu kaloo ka baqayaa in beesha wargeer iyadana ay ku kacdo. Marka cabsidaas isagoo qabo ayuu mahad maxamed salaad waxaa leeyahay xilka inuu ka qaado ka baqayaa. Marka beesha caalamkana cadaadis weyn ayay saaraysaa waxay leeyihin ilaa mahad salaad waa inaa ka qaada xilka. Marka cabsidaas meesha ka jirto awgeed xashi maxamuud waxaa haysta laba daran mid dooro waa inuu go-aan gaaraa oo mahad maxamed salaad xilka ka qaadaa saasna uu ku adeegaa. Marka midda kalena waxaa waaye waa inuu beesha caalamka warkooda diida mahad maxamed salaadna xilkiisa u daaya. Labadaas go-aan ayaa horyaalla xashi maxamuud. Waxaa leeyahay waa nin isha go-aan jilicsan isbedbedelkiisana uu badan yahay, laakiin xashi maxamuud dadka waxay leeyihiin beesha mahad salaad kasoo jeeda lagama maro. Inta badan waa beesha aad micnaha ugu kacsan dowladnimada Soomaaliya oo waqti maxamed cabdullaahi farmaajo beesha aad ugu kacsaneed ahayd xashi maxamuud iyo nimanka la yihahdo maxamed cabdullaahi farmaajo ninka ku kacsanay ahaayeen xashi maxamuudna la safnay. Haddana waxaa laga yaabaa haddii oo xashi maxamuud oo ayaga soo rabo u yeeli waayo inuu mar labaad ay ku kacaan. Marka cabsidaasna way haysataa beesha caalamka cadaadiskeeduna wuu jiraa. Marka xashi maxamuud dadka waxay isweydiinayaan nisa ma ka qaadi doona mahad maxamed salaad. dad kaloo fara badan ayaa dhibsaday oo waxay leeyihiin mahad salaad wax oo nis kusoo kordhiyey ma lahan, inkastoo maalin dhaweyta la dhahay mushaaraadkii waxba u kordhiyey, laakiin hadda wax isha kale oo nis kusoo kordhiyey iyo howlo fara badan ee nis ay magaalada muqdisho ka haysa ma jiro. dhaqaaq fara badan iyo howlo badan oo hayana ma jiraan. Marka magac ahaan un ay hadda nis u jiraan, laakiin howlgal ahaan iyo waxqabad ahaan iyo sirdoon ahaan uma shaqeeyaan oo sidii la rabo ma aha. Marka dadku waxay isweydiinayaan sababta isbedelka sirdoonka uu shaqeey la-yahay, sababta guusha loo gaari la-yahay in nisa hay-adda waa hay-adda sirdoonka qaranka waay, waa hay-adda dhan ee dowladda ku tiirsan tahay. Waxaa laga rabaa waxyaabo badan inay la xiriiriso howlo badan isheeg xagga amniga iyo ay ka qabato. Marka waxaa leeyahay nisa aad ay ugu gaabisay arrintaas, waxaan ugu wacnaa leeyahay hoggaan xumi oo mahad maxamed salaad lagu eedeynayo. Marka beesha caalamka aad ay cadaadis ugu haysaa xashin maxamuud. Maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa haddii uu go-aankaas qaato, laakiin dadku waxay leeyihiin haddii xashin maxamuud lacalla uu ka qaado xilkaasi ninka la yihahdo mahad maxamed salaad, waxaa laga yaabaa mahad salaad in xil kale lagu qanciyo oo ama meel wasiir ama meel kale ama xil kaloo muhiima loo dhiibo ayaa laga yaabaa. Sababtoo nin meel cidla u dhigi kara ma aha, waa nin UPD ay ka wada tirsan yihiin, waa nin ay halgan iyo muran isla soo mareen oo maxamed cabdullaahi farmaajo dowladiisa ugu kacsanayeen waa la ogaay. xashin maxamuud asi naftigiisa beryahan oo magaalada ku kacsan tahay beelihii Soomaaliyeedna ku kaceen oo waxay leeyihiin balantii nooga baxay. Marka iyadoo balantaas uga baxay haddana waxaa leeyahay wuxuu mucaaradka ragga isla ahayn xataa balanta uga baxay, wuxuu ballan qaaday inuu kala tashan doono xiriirka iyo dowladnimada Soomaaliya qaabka u dhaqaaqi doonto inuu kala tashan doono raggii iyo la soo halgamay. Marka badbaado qaran iyo nimankii dhan wuu ka tagaa leeyahay markii laga reebo mahad salaad oo 4 qofood oo beeshiisa ay xilal muhiima ay heleen. Marka mahad maxamed salaad cidiisa go-aan ayay gaareen oo dowladda toos ay u taageereen, laakiin waxaa leeyahay beelaha kale meesha ku dulman. Marka xashin maxamuud culays fara badan ayaa soo food saaraa si naftigiisa beryahan waxaa leeyahay xaaladiisa iskuma toosno, maalinba maalinta ka dambeysa waxaa leeyahay dhib fara badan ayaa jiro oo dhibkaas waxaa leeyahay wuxuu keenayaa isheeg isku dhacyo maamul goboleedyada iskuma fiicno oo marba dhinacayo looga soo furaya. Marka iyadoo maamul goboleedkii ay isku kacsanaayeen oo dhinacaas ay culays ka jiray, haddana dhankan kale oo dowladda Soomaaliya iyadana isheeg dhankeeda gudaheeda dagaal oo ka bilaawdo beelihii Soomaaliyeed ku kacaan waxyaabo fara badan nimanka mucaaradka ay ku kacaan. xashin maxamuud dowladnimadiisa waxaa leeyahay iyadaaba qalqal ku jirto.
marka maadaama qalqil iyo cabsi fara badan ee xagga amniga iyo xagga isheeg mucaaradka iyo xagga beelaha Soomaaliyeed ay Xashin Maxamuud ay haysato iyadoo culayskaas haysto ayaa haddana waxaa laleeyahay beesha caalamka ayaa ugu dartay waxay leeyihiin ninka hadda mar dhow 2 bil 3 bilood ka hor la magacaabay waa inay xil ka tuurtaa marka caalamku ma madax bannaayaan dowladaha Soomaaliya dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu leeyahay wadamo badan irdaha ka xiratay maahane dowladaha kale faragelin joogtay ku hayeen isagana waxaa leeyahay waa dictator ahaa waa go-aan adkaay waxyaabo badan ayuu sheegeen maxaa la dhagaa ka fureystay inkastoo dadka qaarna ay ku ammaanayaan ay leeyihiin way fiican tahay in dhagaa laga fureysto caalamkan iyo dadka wareeriyay mar walba dowladnimada Soomaaliya faraha kula jiro laakiin hadda beesha caalamka dan gooniya ay ka leedahay laga yaabaa in mahadsanad xilka laga qaado dacwo gooni ay soo gaartay iyo dambi gooni mahadsanad lagu haysto ma jiro inkastoo Fahad Yaasiin Xajdaar oo toosh ku ifiyay oo dhahay ninkaasi waa nin nisa ka tirsan oo hadda madax u ah laakiin in loo magacaabo waa ka xumaay ninkaas wuxuu la shaqeeyay ururka al-shabaab in mahad karatay ayuu ku xiray maadaama mar hore oo dhahay cabsidaas waa toosh ayay ifisay Fahad Yaasiin Xajdaar marka dadka waxay leeyihiin Fahad Yaasiin wuxuu iska weecinayay kiiska asaga loo haystay oo Igraan Tahliil iyo waxyaabo fara badan iyo xildhibaanimada loo diiday iyo kiisas fara badan oo asaga dhankiisa culays ka ahaa ayuu wuxuu ku jeediyay Rooble iyo nimanka la yiraahdo Mahad Salaad sababtoo dagaal ayaa kala dhexeeyay siyaasadda marka meel la aamini karo malaha Soomaaliya wajideedu waa iska badan tahay saaxiibtinimadeeda toos ma aha qofka siyaasiga maanta wuxuu asaga rabo kugu shubayaa wuxuu ku leeyahay maanta waana la dulmiyay beesheen eber waaye beesheen wax ma helin biri markii oo asaga wax helan wuxuu ku leeyahay waa qanacsanahay waa isku toosan tahay xaaladda marka adigana kuma yaqaano oo jarjar ayuu kugu fuulaya marka Soomaaliya qabiiladka uu ku weyn yahay barnaamijka qabiilka uu ku weyn yahay qof walbana waxa waaye tubo iyo hunguri ayaa wado dadka Soomaaliyeed oo qaylinaayo oo dowlad walba imaada farqaha ku dhagan waxa haya han qabiil ayaa haya oo waxay raadinayaan dad ayaga ka tirsan oo qabiilkooda ka tirsan inay meesha ay ka mid noqdaan kadibna ay tubo u xiraan oo xagga dowladda ah marka saas ayaa mar walba dowladnimada Soomaaliya ku dhisan tahay Soomaaliya dad daacad ah oo dowladnimada u shaqeynaayo way ku yar yihiin dad wadaniyiin ah oo waxa waaye dowladnimada Soomaaliya qadarinayo way ku yar yihiin nin walba dantiis ayuu fiirsanaya marka Soomaaliya waxaa leeyahay xaaladeeda faraha kama qodno mar ka dambeyso beel hebela kacday beeshana kacday beel kale inta ka booday ma qanacsano kan saan waaye looma dhamo waxaas weligeed way jiri jireen marka waxaa fiican nin go-aan adag oo waxaas ka tilaabsado qofka qayli iyo qof kale baan dheg jaqla loo siinin dowladnimada Soomaaliya daacadnimo loo wado hal waji ee Soomaaliya ay yeelato maamul goboleedyada in dhagaa lagu dhifto oo maamul goboleedyada dhan meesha laga saaro kadibna la dhaho hay maamul goboleed dhan meesha ma ka bixin dowladda Soomaaliya qofka hoos imaan waan ku duulayna anaga go-aan ka gaarayno fadhigiisa loogu tagaa marka dowladnimada Soomaaliya intii qaramada midoob iyo balaayo lug ku leedahay iyo inta African Union ciidamadeeda meesha ay joogaan wax ay Soomaaliya taraysa malahan horumar weyn ay gaari doontana malahan waxa ku fiican in Soomaaliya ay midowdo ciidamadeedana loo daayo Soomaaliya go-aanka ay gaaraan iyo dowladnimada Soomaaliya lagu dhaqaaqo wixii oo muran ay dowladnimada ka horkeenana Puntland iyo Jubbaland iyo Highland iyo waxaan iyo Galmudug iyo hawada laga saaro ciidamo Soomaaliyeed oo qaran la dhiso inta hadda dhisan iyo ka badan la sii dhiso wadan meel walba oo dhib ka jirana ayaga loo daayo marka taas ayaa fiicnaa lahayd Soomaaliya hal waji leh ayaa fiicnaa lahayd waxaan laalaankana meesha ka bixi lahaayeen marka nin daacad ah oo dowladnimada Soomaaliya go-aan ka qaadan karo waxyaabahan qabiilaadka iyo dadkan qaylinayaan dhagaha ka fureysan karo Soomaaliya hore u dhigi karo Ilaahay ha noo sahlo shacabka Soomaaliyeed idinkana ku maasantiin la socodkiina barnaamijkeenan fikirkiina waa ka dhiiban kartaan xagga commentiga oo nagu reebi kartaan waxaan ka codsanayaa YouTube-kana subscribe iyo like share inaan nala wadaagtaan wax walba nagu soo kordhay idin soo gudbina diyaar ayaan u nahay waan ku maasantiin la socodkiina barnaamijkeena tan iyo kulanteen dambe xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo